youtube-kaanu waxa uu qaban doonaa haddii alla yidhaahdo nashrinta diinta islaamka inaanu ku fidinno oo aanu gaarsiino dadka walaalahayna ah oo Soomaaliyeed oo ahlu khayrka ah inay su'aalaha iyo jawaabaha ay ka helaan oo su'aalaha soo weydiiyaan wixii ishkaal uu ka galo Ilaahay wuxuu naga fahamsiiyay aanu jawaabta ugu celino ayaanu doonaynaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. الحمد لله ولا ليال وحانو تاغنهي مسجد كويناي أو دار القرآن دوشيسا masjidkan waxaa weeye dhismadiisu waa ay soo socotay markaana waa gebangeba la dhihi karaa. meeshaan hadda aynu taaganahay waa dabaqii labaad koor dalihii ka koreeyey oo masjidka lagu soo xiray. halkan waxaa la saaraya saad u jeediin batuutadii ayaa la saaraya oo masjidka biyaha ka qaadaysay. ilaahay mahadiisa intaan ayuu masjidka soo gaaray. waxa hadda maanta uu u baahan yahay oo masjidka shaqada la bilaabayo waxa weeye waa maaragtay mutulaal iyo shamiito iyo caro uusan ka maarmaynin. hadda waxa weeye khaatumadii baa la joogaa. ilaahayna waxaa la weydiistaa xusnul khaatima la weydiistaa. dadka Soomaaliyeed oo dalka iyo dibadda ku nool oo masjidka ka qayb qaatay iyo wixii aan ka qayb qaadan oo markaas codkaynaan iyo muuqaalkeenaan uu gaaro waxaan rajaynaynaa inay ku tabarucaan in masjidka laga caawiyo mutulaalka iyo ramaayada iyo shamiitada masjidka la khatimo. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana ajir laga raadsado. maxaa yeelay rasuulkeenu xadiiskii imaam Muslim oo wariyey waa tou dhahay man banaa beytan lilaahi bana allaahu lahu beytan fi ljannati. xadiiskii imaam Muslim saxiixiisa ku soo saaraan dhihi lahay waa xadiis Abu Hurayra ah. qofkii guri ilaahay kiisa dhisa ilaahay jannadu guri ugu dhisaaya. dhismaduna kaliya maaha in adigu masjidkan aad dhisto. masjidkan waa masjid aad u balaaran ah. alxamdulillah wax badan islaamka u qaban doona. la leeyahay ama injineerku uu dhahay halkii mar 10 kun ku duka karta oo dad muslimiina. hadda hawshaas hawl sahlan maahan taniga maalintii la bilaabay ayaanu wadnaa. alxamdulillah anagu waxaan soo jeedinaa intii ka qayb qaadan karta inay wax ku darsato oo diiwaanka ilaahay waxay geysato. intaas ayaan maaragtay ugu yeernaa. alxamdulillah dadka Soomaaliyeed duruuf ka soo ku jiraan waa ay dadaalayaan oo sadaqada waa ay jecel yihiin. wixii wax lagu la baxana adaa diiwaanka ilaahay wax dhiganaya. adduunyadana waqti gaaban ayaanu joogaynaa waana ka soconaa. laakiin hadde waxa weeye camal bacdigaaga shaqaynayo oo ah camal saalix ah oo sadaqa jaariye ah oo weligaa ka dhamaanayn ajirkeedu ku soconayo bacda mowdkaaga weligeed ku soconaysa adoo dhintay ayaa camalkaaga socdaa. waxa weeye masjidka oo aad wax ku darsato weeye. marka hadde mutulaalka sida marka lagu qiimeeyay 3,333 kinta bahalka waxaan dhihi lahay oo mitir ayaa la dhahay. laakiin hadda intaas wax waa ula sii jirayaan wixiina waa ay qaaliyoobeen oo waagi hore mitirku wuxuu ahay $6 ayuu ahay haddana 7 ayuu marayaa. 3,300 iyo maaragtay 33 wixii aad ka qayb qaadan karto haddaad ka wada qayb qaadan karto ood leedahay ilaahay diiwaankiisaan wixiiga ku shubanayaa albaabku waa kuu furan yahay. haddaad maaragtay aad 1,000 gedaysid haddaad 100 gedaysid haddaad 100 gedaysid haddaad 50 gedayso qof walba waxa weeye maaragtay albaabku waa u furan yahay inuu gurigaas ilaahay wax gashado ayaan maaragtay khayr badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsiniin oo ilaahay ihsaan sameeyo. ilaahay muhsiniinta waa jecel yahay. ihsaan la bixiyana midka uu khayrka badan waa guryaha ilaahay oo la dhiso. alxamdulillah masjidkan meesha uu ku yaalana waa meel aan masjid ka fog yahay
waa meel maaragtay ummad dhan ay kusoo hira doonto waa ummad dhan Soomaali hadday sii jirto muddo fara badan oo anagu aan nooleen quruun fara badan oo naga dambaysa ayuu sii dhisnaa doonaa qaabka loo dhisaa iyo shaqadiisu waa shaqo aad iyo aad u adag insha Allah ta'ala anagu insha Allah ta'ala intaas waxaan dadka ugu dirayno kulay shaqadan iyo dhulkan iyo waqafkan iyo hawlahan anaga bixinay waana wadnaa wixii Ilaahayna siiyana ku dhiso hayna intii wax nagu darsanayso iyaduna ka ajir ka qayb qaadanayso waa albaabku waa u furan yahay waxaan diidayaa inaan maaragtay dadka aan ka qarino insha Allah ta'ala muslimiinta oo jecel inay khayrka ku baraarugaan insha Allah ta'ala masjidku waa gabagabo Ilaahay idinkiisa bacda shuhuur waa la furi doonaa haddii Ilaahay nafta nagu baaqi yeelo inuu fatxi Ilaahay uga dhigo ummadda sadaqadana cid walba Ilaahay uu ku furto qofkii jiran Ilaahay uu ku caafiyo maxaa yeelay rasuulkan wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam daawu mardaakum bisadaqati dadkiina jiran sadaqada ku daaweeya dadka isbitaalada waxba looga waaye dadka dhalmada waaye dadka wax walba waaye oo cudurradu ay haayaan waxaa la budda haday warka nabiga rumeeyaan calayhi salaatu wasalaam oo i'tiqaad wanaagsan la yimaadaan inay heli doonaan maxaa yeelay wax aan maaragtay wax ku soo aroora la arag ayaaba la isku dabiibaya marka sadaqada la isku daaweeyo cudurradii waa ay bateen dal iyo dibadba cudurradii dadka waa ay ka bateen waxa weeye masjidkood wax ku darsato oo aad rumayso hadalka nabiga calayhi salaatu wasalaam caqiidiyan aad u rumayso oo i'tiqaad saliim aad la timaado ayaa ku daaweyn doona insha Allah ta'ala waana warbixinta aan bixinayno waxaana weeye waqtigan hadda aynu bakaliibkan qabanayno maaragtay waxa weeye bishii 11aad waxaan dhihay bishii 11aad oo 21 weeye November 21diisi waaye maantana maalin axada waaye bisha muslimka oo hijriyada oo ayaduna maaragtay jamaadul awwal ah ayaduna 26 waaye marka waxa weeye maantana waa yoomul ahad taariikhda hijriyadana waad ogtihiin oo waa 1443 weeye taariikhda miilaadiyadana hadda taasaaba la aqoon og yahay waa 2021 insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaa maaragtay fasabiqul khayraati ilaahi uu dhahay khayraadka u degdego uu dhahay ilaahi subhanahu wa ta'ala wahaday a'maalul aakhirah yihiin in loo degdego ayaa shariicadu amaanaysa haday wax adduunyo yihiin in laga fikiro oo loo fiirsado oo aan lagu degdeginay shariicadu sheegaysa marka hadda masjidka iyo meelahan khayrka iyo salaada iyo cibaadada in loo degdego ayaa shariicadu nafaraysa marka insha Allah ta'ala waxaanu rajay doonaa in Ilaahay idinkiisa khaatumada iyo masaajidka gogoshiisa iyo maaragtay mutaleelkiisa iyo waxyaabihii kale soo raaca inay maaragtay si degdeg loo keeno Ilaahay idinkiisa qof hal qof oo Ilaahay wax siiyay ayaa kaligiis bixi kara haduu maaragtay i'tiqaad fiican uu leeyahay laakiin hadda hal qof lagu gooni yeeli maayo qof ayaa halkaysho shamiita keena oo la arkay qof halkaari ko dhagax soo dejiyo la arkay qof waxa weeye maaragtay intaas ka yar keenay qof $0.5 xataa keenay amba ka sii yar dada keenay intaas oo dhanba qof walba i'tiqaadku uu leeyahay Ilaahay siinaya marka insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inaan hawshaas si degdeg u dhamay doono hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh